السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا برنامج جاره أو عن كجهل لأنه عبد الكريم شيخ موسى قلب دجح أو ها سرقال كتير سنة جبهة أو إلنف أو سنة كي لبكون إيوه تضبيط طبنكي بشي أغسطس إن الأفتة مركزي دولة الصومالية أي وقع إنجليزي دولة ودن كإثيوبيا عبد الكريم شيخ موسى قلب دجح سنة كدب أيام السوداء وحنا مركزي حمنا كتير سنة دولة الصومالية سياسيين يحمنا كله أي مركزي سياسيين رالجين أي كشجن إن مركزي أي كجحيين واحد عيض برلمان كصومالينا جوان أو إلنف أرجع حسان مركزي اللي وجود دري وكوري مد إسلام مركزنا قلب دجح برلمان كوشجي إن مركزي قرض أيه ليبستي صدبة عبد الكريم شيخ موسى قلب دجح مانتا يوسف جاري مقالة مقدشة عاصمة الصومالية وحنا أقول لكم مي رئيس وزراء حكومة الفدرال كاهي الصومالية محمد حسين روبلي وحنا رئيس وزراء روبلي وجدونسيي بلاد iyadoo markaas raiisul wasaaruhu uu sheegay in isagoo ku hadlaya shacabka Soomaaliyeed iyo gudahan Soomaalidaba uu raali gelin siiyay Cabdi Kariin Qalbi Dhagax oo isaguna hadlay waxa uu sheegay in raiisul wasaare Roble iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed uu ka aqbalay raali gelintaas isla markaana wali aysan raali gelin iyo ka garaabid aysan arintaasi ka seenin dadkii markaasi lugta ku lahaa falkii lagu dhibay haddaba Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax markii ugu horeysay dawladda Itoobiya loo gacan gelinaya waxa laga qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wariye Cabdilcaziz Golofeere waxa uu kamid yahay wariyaasha Soomaaliyeed ee warbixinada iyo xogaha xasaasiga ah ee ka qora arrimaha Soomaaliya Cabdilcaziz waxa uu ahaa wariyihii ugu horeeyay isagu markaasi qora xogta ah in Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sargaal ka tirsan oo INF la qabtay isla markaana dawladda Itoobiya loo dhibay Cabdilcaziz Golofeere hadda ayuu stuudiyaha telefishinka dalsan la jooga Cabdilcaziz soo dhawow iiga waran bal wariyihii ugu horeeyay xogta sarkaalkan Cabdi Kariin Qalbi Dhagax qoray ay ahayd sideed ku heshay xogtaas waa masantahay idle arinta Qalbi Dhagax toddobaad ayay taagneed sida hadda sheegtay ba Gaalkacyo ayaa laga soo qabtay ciidamadii nabad sugidda ee baabuurka Galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay Muqdisho loo soo wareejiyay dhacdo waxay iska ahayd markaas horta banaanka taalo in qof Gaalkacyo deganaa ama hotel degan inta la soo wado Muqdisho la keenay warar kala duwan markaas soo baxay toddobaad oo xaalad waxay iska ahayd oo isu soo tareysay xilbaari arinta gaartay Qalbi Dhagaxna waa la ogaa inuu Soomaali joogo xilligaasna xubin firfircoon ka ahaa ururka ONLF Itoobiya dabcan wuxuu ugu jiray dadka aad u baadagoobaysay oo doondoonayay marka isbuucaas Muqdisho lagu hayay iyo armihii ka soo baxay aad xogaal u ahaa ama aan dabagal ku hayay maalmo kadibna waxa dhacday in Muqdisho laga dhoofiyo waliba dhamaadkii bishii August ay ahayd 26 ayada oo baleena diyaarad ayaa garoonka Muqdisho ka qaaday baydhabo ka dejisay kadibna goday ayaa loo gudbiyay markaas ismaamulka Soomaalida Itoobiya ilaa iyo gudaha Addis Ababa la geeyay way Cabdilcaziz xogtaas intaad hesho dabagal ku samayso marka laga soo tago waxa xajmigeeda iyo saameynteeda leh oo in laga fakaro u baahan inaad daabacdo bal ka waran intaada daabicin oo warbixintaas aad bulshada iyo dadka kugu xiran aad la wadaagin ka waran bal inta istaabay martay arin horta saameyn leh dabcan anigana waxay ugu yeelatay saameyn culus xog intaas la eeg oo xajmi in la sii daayo ma ogtahay waa wax aad u xoogan markii arinta soo baxday oo anigana dad kala duwan mas'uuliyiinta oo dawladda ka tirsan ama hay'adaha kala duwan ka tirsan ay la wadaageen san ku sheegay marka hore arinta Qalbi Dhagax wax banaanka yaali ahayd wasootii Gaalkacyo diyaarad looga soo qaaday Muqdisho la keenay leesma dhaheen in loo qaadi karo muxuu ahaa Itoobiya warar balad magaalada ku jiray warar qaarna waxay sheegayeen in dawladda iyo ninkan wada hadalka daxwado madaxtooyada kale aan aad xusuustaa waxay diyaarinaysay war lid ku ah wararkii aan markaas baahinay oo sheegnay ninkan Itoobiya loo gacan gal rabo waxa la daawacay warqado oo la leeyahay ninkan baasaboorka ama mustabaqadiisa la daawacay wada hadal u socda maalmo kadib markii la dhiibay dad mas'uuliyiin oo sheegay qofka wariyahan inta badan source oo leeyahay source gudaha ah mid dibadda ah source-gaasna markaan arkay source sugan inuu yahay dad mas'uuliyiin oo warkooda loo qaateen yahay markaas aan warka baahiyay
waa saacado kadibna way igu soo laabatay dad badan inuu arrintan ma jirtaa ma dhacday xilligaas waxay ahayd 6 bilood ugu horeysay dowladda madaxweyne Farmaajo dhacdooyinka ugu horeeyay qabsaday dhacdadaas waxaa ka horeysay dhacdada Bariire marka marna qofna isma dhaheelin Farmaajo oo xilligii uu dalka qabanayo kusoo kambeyn gareeyay ama kusoo ololeeyay yani wadaneed iyo waxaas ayaa nin Soomaaliyeed ayaa Muqdisho laga dhoofinaa dadka waxay lahayd arrin la yaab leh marka siyaasiyiin qaar waa soo wacin dadka ay soo wacin sidee arrinta ku dhacday marka maalmo aan isdhahay arrintan ama kugu soo laabataan ilaa markiis ururka ONLF عادي هاي بيان سو صارين دولة الصومالية نكاسي وديفتي مركز تمن أرنت وابسي فافت إلا حكومة ده قرار كسو صارته ده هذا نكاس وادي يبني ولا لفنا أرجح سوا. وياه مركز حكت أي شيء أو عاد باهسي أو عاد قرطي طبعا واحد سلة هاي ويصول عمن كرتا وحبا كسول عمن كرا مركز قار وحلقة إن سورس عاد وحكسو حجنيسو مركز قار وحسين لا فكران مركز فكر انت لك بكوجيسي ان اي دبك بينود horta source horta labo kaliya source oo qof aqoon war ku siiyo waa adagta qofkaas ina aaminto oo daba gasho yani source aan helay rag oo asagan ku sheegay loo qaateen oo siyaasiyiin oo warkooda aan aamin karno sababtan ku sii aaminno waxay ahayd arrin markii hore banaanka taaliyeed ninkan qalqacyaanta laga soo waday xamar la keenay marka xamar la keenay si toos ay dawladii ugu wareejisay Ethiopia marka taas keentay in xogti aan aad u aamino sidoo kale adkeeyo sugo dadkii warkii soo gaarsiiyo aan rabin qofka wariyaha inta badan sourcigiisa banaanka uma dhiga ilaa maxkamad ayaa dastuurka ku qoran ilaa maxkamad laga geeyo warkiina markaan baaritaan ku sii sameeyeen saxay noqdeen xataa dada waxay igala soo xiriireen dowladda deegaanka Soomaalida oo xogtaas hayay dad Kenya jooga oo asxaabna ayagana way la wadaageen ninkan ilaa dhaqdhaqaaqiisa la socdeen way marka saameyn intee laga kugu yeelato waxyaabihii ama saameynta ugu badneed aad dhihi karto maanta warkaas aan baahiyay waxaasan kala kulmay ama dhacdadaasaan ku xasuustaa kulli aniga saameyn aad u weyn ugu meelan bal inaa magac ka helay oo sumcadeeda kor u sii kacdo mooyee teeda kalena waa war weyn oo ahayd dabcan warkaasna wax kasta ka soo gaar kara haddana isma lahayn warkan been waay marka warku been yahay saameyn iyo cilado kale ay yeelan kartaa mar walbana sourcigii waa ku kalsoonaa xilligaas way waa maasan tahay maanta ayuu magaalada Muqdisho soo gaaray dabcan soo deyntiisii iyo kadib goobjoogaad ka ahayd ra'iisul wasaaruhu la kulmay bal maxaad ogaantaa nagala wadaagi kartaa ra'iisul wasaaraha iyo isaga waxyaabo ay ka wada hadleen qalbi dhagax saakio kismaayo kadibna Muqdisho ayuu soo gudbay xafiiska ra'iisul wasaarahana lagu casuumay oo martiqaad kooban ama munaasabad kooban ka dhacday munaasabadaasna xaal marin iyo ra'iisul wasaaruhu arkaysay wuxuu gudoonsiiyay calankii xaal marin oo siiyay raaligelin sidoo kale bilad ayuu siiyay biladaasna waxay ka turjumaysay go'aankii ay xukuumadda ka qaadatay bishii Febraayo ee sanadkan kaga laabatay qaraarkii xukuumaddii hore ka soo saartay 6 September ninkan loogu dhiibay Ethiopia sidoo kalena ururka ONLF looga dhigay argaxiso kulli asigana wuu ka mahad celiyay ra'iisul wasaarahana si public asigana raaligelintiisa ugu bixiyay oo xaal marin iyo in ummadda Soomaaliyeed ka xuntahay inuu sheegay wayahay adiga qudhaada adoo la sawiran asaga iyo ra'iisul wasaaraha baa la baahiyay marka si gaar ah adiga maadaama wariyii ugu horeeyay warkiisa baahiyay tahay ما لا كلنتي بل محكو شيء حفيزك ولا هو عزومي ولا هو مرتقاده ما دام ولا اوغاي ان انا هاي قف ugu horeeyo warkiisa sheel meeshaan isku aan gacan qaadnay oo ii mahad celiyay inaan runta daaha ka qaaday wax badan oo qarsoonayna soo saaray maalintaasna hadaad adiga ama dadka Soomaaliyeed u bandhigi lahayn maanta lama way arkeen oo ugu yiri waa ii mahad celiyay anigana sidoo kale waa u mahad celiyay sharafna inay yahay وياي أدي أدو ما سين هاي وري عبد العزيز جولفيرا أيها وطبعا إنه جو الرمية أرنت اللي حريته كيس كعبد الكريم الشيخ موسى قلب النجح أو سرجال كترسن جبهة أول نف أو مركزي وياي وريه وري بهيتان وعراه مركي لقى بتي مجرد قال كعيو حرنت قبل كمدو قالهان لنا معمول كجلمدو عبد العزيز أدبدو ما سنتي وكم هذا علمي. هذه كمان صح.